kadib markuu ilaahay dhulka u soo dejiyey nebi aadan iyo xaawa lagana soo saaray jannada waxay noqdeen kuwo dhulkii loo soo dejiyey camira ku caabuda ilaahay sidoo kalena tarma waxaa dhacday in carruurtii ay dhalayeen mid ka mid ah uu dil u geystay walaalkii isagoo ku haysta gabadhii uu gursan lahaa sidaasna wuxuu ku noqday dilaagii kowaad ee dunida dusheeda dhiig ku daadiya haddaba xalqadan ayaan ku eegaynaa qisada ka dambaysay isdilkii qaabiil iyo haabiil iyo sidoo kale nebigii ku xigay nebi aadan calayhi salaam eeshiis binu aadan magacaygu waa cali maxamed halkanina waa gob miidiya ku soo dhowow xalqadeennii labaad waynu kaga hadlaynay qisaska nebiyada nebi aadam calayhi salaam iyo xaawa waxay isku dhaleen 40 carruur ah 20 ka mida waxay ahaayeen wiilal halka 20 kalena ay ahaayeen gabdho waxayna laba kasta ahaayeen mataano oo wiil iyo gabar isugu mataansan labada mataanaha ah isma guursan karin balse wiilku wuxuu guursan karay gabar da'da ku xigta ah oo aan ku mataan ahayn xigmadda ilaahay baana ahayd in ay faraca nebi aadan bataan oo tarmaan waxaa dhacday inuu khilaaf dhex maray laba ka mida wiilashii nebi aadan oo lagu kala magacaabi jiray qaabiil iyo haabiil qaabiil ayaa diiday in loo guuriyo gabadha mataanta walaashiisa haabiil maadaama ay ka qurux badnayd gabadha la dhalatay haabiil si loo kala saaro aabbahood nebi aadan calayhi salaam ayaa ku amray inay sameeyaan qurbaan allabari qaabiil wuxuu lahaa beer halka haabiil uu lahaa xoolo waxa uu qaabiil soo qaaday dalagii ka soo go'ay beerta haabiilna waxa uu soo qaaday wan weyn oo cayilan waxayna dhigeen qurbaankii ama allabarigii buur dusheed waxaana loo sheegay kii qurbaankiisa alle ka aqbalo in iftiin qaadi doono qurbaankaas oo xagga samada la geyn doono ilaahay ayaa aqbalay qurbaankii haabiil qaabiil markuu arkay in laga aqbalay haabiil ayuu caro iyo xaasidnimo caradii waxay ku kaliftay inuu u hanjabo haabiil oo walaalkiis ahaa inuu dilo waxaana dembiga ku riixayey ibliis oo been iyo khiyaano u dhigay ugu dambayntii qaabiil wuxuu dilay walaalkii haabiil dhacdadan ayaa noqotay dilkii ugu horreeyey ee ka dhaca adduunka dushiisa haabiilna wuxuu noqday qofkii ugu horreeyey ee si dulmi ah loo dilo qaabiil wuxuu dhabarka ku qaatay meydkii walaalkiis haabiil mana uuna garanaynin sida loo xabaalo meydka ama loo asturo meydka loo aaso wuxuu dhabarka ku sitay muddo badan allah subxaana wa tacaala ayaa u soo diray tukahaasi oo qodaya dhulka si uu u tuso sida meydka loo aaso sidaasi ayuu u raacay tilmaantii tukaha una duugay walaalkiis oo uu gacantiisa ku dilay maadaama qaabiil uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee ibnu aadam ah ee dil bilaabay waxa uu qayb weyn ku leeyahay dilalka adduunka ka dhaca ilaa iyo maalinta qiyaame nebi aadan calayhi salaam ayaa noolaa ilaa 1,000 sano oo gaaray markii uu geeriyooday nebi aadan calayhi salaam waxaa timid malaa'ig si ay u tusto ubadka nebi aadan qaabka loo dhaqa meydka loona kafno kadibna loo aaso sanad kadib waxaa dhimatay xaaskiisii xaawa halka ay ku duugan yihiin aadan iyo xaawo culummada waxa ay ka soo jeediyeen doodo kala duwan culimmada taariikhda qaarkood waxay ku sheegaan inay ku aasan yihiin buuro ku yaallo dalka hindiya halka kuwo kalena ay ku sheegaan inay ku aasan yihiin sacuudiga mana jirta cid si rasmiya u garanaysa intuusan geeriyo nebi aadan calayhi salaam wuxuu u sii dardaarmay wiilkiisii shiis inuu hoggaanka u sii qabto ubadkii uu ka tegey faro alla kacabsiga kana reeba xumaanta dardaarankiisii ayuu ugu qoray kitaab kadibna uu siiyey si uu u fuliyo marka uu dhinto wuxuuna amray inuu ka qariyo walaalkiis qaabiil oo aynu horay u soo sheegnay inuu xaasidnimo daraaddeed u dilay walaalkiis haabiil nebi shiis iyo carruurtii kale uu ka tegey nebi aadan iyo intii ka farcantayba waxay degganaayeen meel buur ah oo dhulka ka sarraysa qaabiil iyo ubadkii ka farcalina waxay degganaayeen deegaan aan ka dheerayn oo laakiin ku yaalla meel buurta ka hoosaysa wuxuuna nebi aadan calayhi salaam ka tegey labadan ummadood oo uu midna hoggaanka u hayo nebi shiis calayhi salaam kuwa kalena uu hoggaaminayo qaabiil qoomkii qaabiil ayaa noqdeen kuwo xumaamtu ku dhex faaftay waxay barteen qaraacidda iyo tumidda heesaha sidoo kalena waxay lahaan jireen dabaaldegyo oo rag iyo dumarba ay wada ciyaari jireen oo ay haweenku isku soo qurxin jireen si ay uga ciyaaraan dabaaldegyadaas waana meesha ilaahay ku leeyahay qur-aankiisa ha isku qurxinnina siday isku qurxin jireen jaahiliyaddan koobaad ee qur-aanka lagu sheegay ayay culimmadu ku sheegeen inay ahayd jaahiliyaddii xilligii qaabiil ee ahayd jaahiliyaddii ugu horraysay taariikhda waxaa la sheegaa in nebi siis uu ka reebay qoomkiisii inay u tagaan qoomkii qaabiil si aysan ugu dhicin fawaaxishooyinkii ay samaynayeen qoomkii qaabiil ayaa ahaa kuwo aad u qurux badnaa oo ka qurux badnaa haweenkii qoomkii nebi shiis
haddaba waxaa dhacday mid ka mida nimankii qoomkii nabishiis inuu si dhuumasho ah ugu tegay qoobkii qaabiil, kadibna uu la dhacay quruxda iyo qaablabiskii gabdhihii reer qaabiil. wuxuu ku soo noqday qoomkiisii, kadibna wuxuu ugu sheekeeyey tiro ka mida raggii waxa uu ku soo arkay reer qaabiil. kadibna raggan oo aad ula dhacay waxa looga sheekaynayo ayaa si dhuumasho ah isku raaceen, waxayna culimmada taariikhdu ku sheegaan tiradoodu inay ahayd nimankaas 100 nin. kadibna waxay aadeen reer qaabiil, iyaga oo ka qayb galay dabaaldegyadii reer qaabiil, damaashaad iyo ciyaaro. kadib waxay ku dhaceen sino, iyaga oo ka sinaystay gabdhihii reer qaabiil, waxaana lagu tilmaamaa inay ahayd sinadii ugu horraysay taariikhda aadamaha. nebishiis ayaa ilaahay ku soo dejiyey 50 safxadood, lagumana sheegin magaciisa qur-aanka, balse nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ayaa ku sheegay dhowr xadiis.